wareertu ahay xildhibaanadeena gudoomiyaha safiirka wiilka ka socda magaciisa ma aqaan raali noqo habar yar cadaani safiirka cadaani waa aqaan safiirka wiilka ka socda ayre cabdullaahi habar yar barasho wanaagsan soo dhawoon ku leeyahay hooyada magaalada ahay xildhibaan ma jirto hooyo wax ka macaan ma jirto waa sax gudoomiyaheeni hore si gaar ah sharaf iyo karaamo ku jirto ayaan ku soo dhaweynayaa cadaani sharaf iyo wanaag bay noo tahay maanta alxamdulillaah intaasoo Soomaali ah siyaasiyiin ah in meesha lagu joogo marka aad baan ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan leh madaxdeeni waa weyneed waliba ay joogto si gaar ah idinku mahadcelinayaa inaad ka soo qayb gasheen idinkoo meel fog ka yimid nuur oo si fiican u soo wada shaqeynay aan wada ahayn isku xisbi wilina wiilkayga ah aniga meeshuu raba ha aado wili waa wiilkaygi wili meeshiisa uu taagan yahay aniga waa la kala siyaasad duwanaan karaa laakiin waalidnimadii iyo wiilnimadii lagama tagi karo marka habar si gaar ah wallahi qalbiga iga taalaa taa uu ogow xisbiga arabti joog mar walba wiilkayga tahay halkaas si gooni waxa uu salaamayaa wadaadada gudoomiyaasha macallimiinta dumarka geeska fadhiyo miiskii waa ahli yar aad buu qurux badan yahay miisaska wada qurux badan yihiin horta waxaana jeclahay ama siyaasadda mustaqbalka ka soo baxo ama gobolada laga soo wada baxo in la wada shaqeeyo haddii la wada shaqeeyo wax badan oo faa'iido wada helaynaa xisbiga arabtid ka soco dadkii xisbiga ku jiray liisaskii oo haray waxa nagu nala fadhiyaa naasir oo halka fadhiyo Seeraar Cabdullaahi Seeraar marka aan wada dadaalna kulligeen dhinaca isqabsano haday ururo tahay haday aqoon yahayntihiin haday gabdho tahay haday wiilal tahay kulli inaan wada shaqeyno ayaan jecelahay aan gacmo isa wada qabsano wadankii waxba naga ma jiro halkaan adan inoogu jirta halkaan aan joognaa waa run si gabadha sheegtay xildhibaanada dharkii waa wada qabnaa laakiin xaggan wada joognaa qalbigii marka aan isku dayna inaan qalbiga soo celino wadankan aad baan ugu baabaanay waad ogtihiin wax la sheegi kara ma aha caruurteeni alxamdulillaah inkastoo maanta aan aad uga fiicannahay intaasoo siyaasiyiin aan ku taagannahay maantayto waa wax sharaf Soomaali u ah qiimo noo ah meel walba inaan taagannahay maanta marka aan ka faa'iideysano biidnillaahi kariim qofka masaajidka ka socdo kan aqoon-yahanka ah kan macalinka ah kan dhakhtarka ka socdo kulli hadii la wada shaqeeyo wax badan baan wada helaynaa wada faa'iido ah marka aan ka wada faa'iideysan saan gacmaha isku qabsan lahayn tan waa gabar tan waa hooyo tan waa wiil aan deejino dhaqanka seen gacmaha isku qabsanaa seen isu caawinaa xisbiga arabtid ka imow mar walba magaci Soomaalinimo ka tagi maysid marka aan ku dadaalno magaci Soomaaliyeed aan ahaana Swedish soo baxay laakiin Soomaaliland nahay mar walba meesha rabta ka imow gobolka rabta ka imow aan isku caawino aan ku wada istaagno waxaan jeclahay aniga shakhsi ahaan anoo hooyo magaceed ku hadlayo inaan isku caawino oo u wada istaagno hawlaha magaalada laga qabanayo aniga waxaan ka soo baxay xisbiga socialka aadna waxaan u jeclahay xisbiga rabo qofka ka soo baxo seen wax u wada qabanaa qof walba xisbu ka yimid xisbigiisa inuu dib ugu laabto baahiyaha jira inaad guddi saarataan waa dadkeena Stockholm ka soo baxay masaajidada aqoon-yahaniinta inta isku tagtaan guddi saarta nin walba xisbigu ka yimid intaad la kulantaan anagoo isku dhan dib ha ugu la noqdo baahida magaalada jirto ninkii xisbigii uu ka yimid ama naagta xisbiga ay ka timid raal noqdo dumarka xisbiga ay ka yimaadeen wax ka keeni waayo biriha u codaynina wala xisbiga wala qofka shakhsiga ah intaas ay idin kula talinayaan anigu xiis cabdimadara maanta waxaan fadhinaa maqaayada Aaron restaurant inaba caadi ma horta maqaayadan waxay caadi isu ku ahayn xitaa bijiix tawaad helaysaa everything waxa u helaysaa mar alla marka bariiska iyo baastada iyo keeg iyo adduunba ka dheertay haddana waxa aad bahal hoos hadda u sii dhaadhacaysa bajiyo keeg adduunka iyo kala iska dhaxgalaysa aan caadi ahayn wax qiimo badan ku ceyrnay hataa ma waa 129 karo caloosha ka buuxi